السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبياشا كحرم برتين يوتيوب كإمداشا وراركا كسو دوادا وراركي قدام بيي لغا قري قد أهانبا دقالada ka socda gobolka Gaday ee gudaha Soomaaliya ciidamadii Itoobiya ee weerarka ku soo qaaday Soomaaliya oo markan wajahaya cadaadiskoodii ugu xumaa shacabka ku dhaqan gobolka Gaday uu istaagay sidii ay isaga qaadi lahaayeen ciidamada Itoobiya ee faragelinta ku haya gudaha Soomaaliya dowladda Soomaaliya oo qaadaysa tallaabadii ugu dambeysay oo ka dhanaa ciidamada Itoobiya xilli madaxweynaha Soomaaliya xilligan uu qorsheenayo kulamo uu la yeesho taliyayaasha ciidamada xoogga dalka iyo kuwa sirdoonka qaranka ee NISA wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Gaday ayaa warkan idinku qaada dhigi doona saaxiibayaal balse haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato barteena YouTube-ka fadlan subscribe inoo saar haddii aad hore noogula joogtana waad ku mahadsan tahay la jaaqaadkaaga iyo la socodkaaga وعن أو وناسن صاحبتين جعل لها يو مركل كسر وذا وركيات مقشين أو دمستران دولة الصومالية يا وحى هيجن بوحق لسيد ضمان عيد مدو حوق الدلك الصوماليات كوانا بسوجد يصير دون كقرن كنيسة أيضا حدا يقاضي ستلابا كرنا عيد مدو إثيوبيا شلي دجالك حوق كسر قاد جودها الصومالية مدحوينها الصومالية يا حلي وحى وكلن جار لي شتريها عيدا كحوق الدلك جنرال أدواء يوسف راجي يسودو كلا ترياها هي أدنى مسجدي يسردون كقرن كالنساء عبد الله سنبلورشي ربضن أيها لجو ورجليين يقيب كالنقدان هو القلب وجوانتن كبل لابندون حدودها صوماليا سودو كان يوديار جروان دجال كذا عيد مدى إثيوبيا شلي ورك قصو قضاء قبل كجدو شريا يهيد مركي عيد مدى إثيوبيانا أو قرب كهلا يكون جبلان أي ستوس أو بريرا ورر قصو قضاء قبل كجدو halkaas ay kula dagaalameen ciidamada Soomaaliyeed oo diyaar u ahaa in amniga guud ee dalka ay la wareegaan ciidamada Soomaalida ay halkaas ku sugnaa ayaa dagaal iska caabin ay sameeyeen waxa ay ku guuleysteen in halkaas ay ku dilaan ilaa iyo 2 nin oo ka tirsan ciidamada Itoobiya halkaas sidoo kale kuwa Soomaalida u badnaanaba sugidda laga dilay ayagana ilaa iyo 4 ruux oo kale dagaalkii shalay ayaa waxa guulo ka sheegtay maamulka Jubbaland inkastoo Itoobiya ilaa iyo hadda aanu wax wara ka soo saarin dagaalkii ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Gaday gaar ahaan degmada Doolow ee gobolkaasi madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland oo goobta ku sugnaa ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Soomaaliya halkaas ku sugan ay si gardarro ah weerar ugu soo qaadeen degmada Doolow xilli aanu jirin wax xiisad oo halkaas ka taagan hayeeshee madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland oo dhawaantan ka yimid magaalada Addis Ababa si uu kulan ula yeesho madaxweynaha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa waxa uu xilligan si weyn u taageeray in ciidamada Itoobiya ay ka soo baxaan xiriyahoodii sidoo kalena ay qayb ka noqdaan howlgalka lagu xasilinayo degmada Doolow ee gobolka Gaday wali ma cadda sababta keentay in ciidamada Itoobiya ay ku soo baxaan dagaal dhaxmariya ciidamada Jubbaland iyo kuwa dowladda dhexe hayeeshee wararku waxa ay sheegayaan in heshiis dhawaantan ay wada galeen maamulka Jubbaland iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu dhigayay in haddii military ahaan looga awood sheegto ciidamada Jubbaland ay garab ka helaan kuwa Itoobiya madaxweynaha Soomaaliya iyo sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ayaa xalay warqad ay direen waxa ay ku cambaareeyeen dhammaan falalka foosha xun ee ciidamada Itoobiya ay ka geysteen gudaha Soomaaliya maalinimadii shalay ahayd kadib markii ay la dagaalameen ciidamada nabad sugidda iyo kuwa xoogga dalka oo xilligan la diyaarinaya inay la wareegaan dhammaan goobaha ay ka baxaan ciidamada howlgalka Soomaaliya u jooga ee ATMISA taliyaha ciidanka xoogga dalka sareeya gaas General Odawaay Yuusuf Raagi ayaa amar buuxa lagu siiyay inuu dhammaan ciidamada xoogga dalka heegan geliyo isla markaana uu u diyaar garoobo hogaaminta dagaal toos ah oo dowladda Soomaaliya ay ku qaadayso Itoobiya haddii tallaabo kale ay u soo qaado gudaha Soomaaliya dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa qadka taleefanka kula hadlay madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo garwadeen ka ahaa heshiiskii dhawaantan magaalada Ankara ay ku wada galeen ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo madaxweynaha Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud waxaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu dhigiisa dalka Turkiga u sheegay in uu ka baxayo heshiiskii dhawaantan uu la galay ra'iisul wasaaraha Itoobiya maadaama xilligan uu wali wado faragelinta ka dhanka ah dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale wafdi xoogan ay u dirtay magaalada Qaahira ee dalka Masar waxa ay ku wargelisay in qadka taleefanka ay iskula hadlaan madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Masar ayadoo madaxweynaha Soomaaliya dhigiisa Masar uu ka codsaday hubka noocyadiisa kala duwan si dhawaantan uu diyaar ugu noqdo dagaal ka dhan Itoobiya haddii talaabo kale ay u soo qaado gudaha Soomaaliya iyo madaxbanaanideeda arintan ayaa si weyn loo taageeray waxaana shacabka Soomaaliyeed ay dhammaan sheegeen inay diyaar u yihiin
dagaal kasta oo ka dhan ah xabashida iyo sidoo kale ciidamada Itoobiya ayadoo shacabka reer Gado ay si weyn ula dagaalamayeen ciidamada Itoobiya 10kii sano ee la soo dhaafay waxaana dadka Gado ay sheegeen in Soomaalinimadu ay ku weyntahay isla markaana ay diyaar u yihiin in ciidamada Itoobiya ee faragelinta ku haya gudaha Soomaaliya ay ka saaraan gobolkooda Gado haddii ay taageero maaliyadeed iyo mid hub ay ka helaan dawladda Soomaaliya xiisada labada dal ee diriska ayaa u muuqanaysa mid xoogan kadib markii xabashada ay si weyn u soo farageliyeen gudaha Soomaaliya ayagoo dhowr jeer oo hore hub geeyay magaalooyin waaweyn oo ka tirsan gobolada dalka gaar ahaan magaalada Caabudwaaq maamulka Puntland qayb ka mid ah sidoo kale Koonfur Galbeed waxaana ugu dambeeyay hubkii dhawaantan lagu wareejiyay hogaamiyaha maamulka Jubbaland eedeysane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe labada mas'uul ayaa hadda waxay dhammaan soo xireen irdihii wada hadalada waxaana loo diyaar garoobayaa dagaal si toos ah u dhaxmara Soomaaliya iyo Itoobiya ayadoo arinkan loo arkayo mid diyaar gelinaya ciidamada militariga Soomaaliya maadaama Itoobiyaanku ay diyaar u yihiin dagaal kasta oo ka yimaada Soomaaliya dhinaca kale Itoobiya ayaa waxay hadda walwal xoogan ka muujinaysaa in shacabka Soomaaliyeed si weyn ay u taageeraan dawladooda maadaama maamulka Jubbaland aanu haysan shacab taageersan isla markaana kuwa Gado iyo kuwa Caabudwaaq bay diyaar u yihiin inay la dagaalamaan ciidamada Itoobiya ee ku sugan gudaha Soomaaliya si kastaba ha noqotee Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa waxa ka dhaxeeya dagaal xoogan tan iyo markii Soomaaliya ay ku dhawaatay inay qabato magaalada Addis Ababa xilli dawladda Itoobiya ay garab ka heshay Ruushka hayeeshee hogaamiyihii Soomaaliya Allah u naxariistay Maxamed Siyaad Barre uu awood ku maqiiniyay dhigiisii Itoobiya xilligaasi mar kale ayay u badan tahay in lagu laaban doono dagaalkii 77 haddii ciidamada Itoobiya aanu ka digtoonaanin dagaalada ka dhanka ah dawladda Soomaaliya iyo faragelinta madax banaanideeda Turkigana waxa uu diyaar u yahay inuu garab siiyo Soomaaliya maadaama ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu dhammaan baalmaray heshiisyadii dhawaantan lagu kala qaatay magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa waxa uu taageero weyn u yahay Soomaaliya isagoo oo xilligan madaxweynaha Soomaaliya ka balan qaaday haddii xiisadu ay faraha ka baxdo inuu ku garab istaagi doono saanad ciidan sida diyaaradaha baariqtaar hubka waaweyn iyo sidoo kale gantaalada rida diyaaradaha Soomaaliya ayaa waxa ay garab ka helaysaa wadamada Masar Turkiga iyo sidoo kale wadamo kale oo ka dhanaa Itoobiya gaar ahaan wadanka Eritrea oo asna hub ahaan iyo miisaan ahaan ka xoog badan dhigiisa Itoobiya waxay hadda talaabada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u arkaan shacabku mid wanaagsan ayadoo ilaa iyo hadda ay soo baxayaan warar sheegaya in taliyaha ciidanka xoogga dalka Odawa Yuusuf Raaga maanta uu tagayo goobo waaweyn oo militarigu ay degan yihiin kuwaas oo ciidamada militariga loogu diyaar gareynayo dhammaan hubka iyo saanada ciidan ay u baahan yihiin dawladda Soomaaliya ayaa waxay fariismo ciidan iyo xiriir waaweyn ka samaysanaysaa guud ahaanba xuduudaha ay la wadaagtay Itoobiya waxaana xilligan muuqanaya in labada dal ay xiisadoodu ay noqotay mid dagaal oo kaliya lagu kala baxo ayadoo shacabka Soomaaliyeed iyo sidoo kale maamulada qaar ay si weyn u taageerayaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud warqadii xalay ka soo baxday xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxaa lagu sheegay in lagu cambaareynayo markii hore falkii Itoobiya maanta ay ka sameysay Gado sidoo kalena waxaa lagu sheegay in talaabada xigta ee Soomaaliya ay qaadayso ay tahay mid military dhammaan waxaa soo xirmay irdihii wada hadalada ee Soomaaliya iyo Itoobiya waxaana xilligan la isku diyaarinayaa dagaal ka dhan ah ciidamada xabashada ee faragelinta ku haya Soomaaliya qodobkaas ayaa ugu dambeeyay saaxiibayaal haddii aad ilaa halkan la soo gaartay waan kaaga mahadnaqaynaa daawashadaada fadlan rukuma halkan oo subscribe saar gambaleelka furo waa madasha wararka kulanti dambe nabadgelyo